كلهم وعنا وناكسنا غيرتها ودنا لحتى هالكانوا برتي يوتيوب كلنا مرة بنقول سعطان حق ساق عندنا حالة يقولون ببلد حاو عبد الرشيد جنان ودو فيسك كقطة دولات كمجال هذا عيد ماذا إثيوبيا يكون جبلان وكسو وجهنا ساق عندنا حق لو ساق عندنا حالة ده المدرك عسير دجال هذا يكسر عندنا شباب هذا حق وزير هذا كسو جن إياه أول كسر عندنا ساق عندنا وحق لو ساق عندنا سير عبد الله الدين وعدكم مري إن دورة فرق الصومال قبل كسناك إسكول قليدون مملكة قوي بروح ليران إسشقين دون دجال نقاطنا ساق عندنا إثيوبيا أو مركز وها جبيسو إريتريا جيبوتي سوماليا نوسوق عندنا يا حالة يقولون بيه دنكا يا دلك جاينا وأصلا وعدكم مري هدي مريك أقصى سومالان إن دبعته وكلا كل مدون وليبا حق لو ساق عندنا معارك دلك جاينا وأيونا شيء إن سومالان إلا أقصى أيتها مهم تاسو أيضا مركز هذا كلا يكون قطعي قنصليدي مجال رجيسة كل هذا دولة تركيا أو أيضا العيري هي سفارة تركيا وستوس ولا حركة عبد الرحمن عرو وحكوا هلا ساق عندنا برامج شرقي ملف قرسي فرقدو waxaan ku hormarnaa gobolka Gedo xaaladii ugu dambeeyay magaalada markaas balad xaawa aad u cakran tahay ciidamada dawladda halkaas heegan buuxa ay galeen oo difaaciye qoteen ciidamada Jubbaland iyo kuwa dawladda maxalliga Ethiopia suufka ay soo dhaafeen oo xilligan balad xaawo waan ku kala baxaynaa Cabdirashiid Janan waxaan u sheegnay inuu iska baxo meeshan woona diiday haddana dagaal ay noqonaysaa marka gobolka Gedo ciidamada Ethiopia iyo kuwa Jubbaland inay la wareegaan oo markaas halkaas gacanta ay ku hayaan saldhigna ay ka sameystaan suuragal ma tahay horta gooryo meeshan waxa weeye xulfaysi baa socda oo Jubbaland waayadan dambe waad ogeyd Maxamuud Sayid wuxuu ku noqonayay dhanka dowlad deegaanka Soomaalida iyo guud ahaanba ciidanka Ethiopia halkaas saldhigyada kule buu ku noqonayay ugu dambeyn waxa dal leeyahay ciidamo Ethiopian Oromo ayuu soo kaxaystay baa leeyahay oo doonaya inay ku maamulaan maxaan ku dhahay guud ahaanba gobolka Gedo ee deegaanada ay ku qabsadaan waxa u muuqataa wax wada hadal iyo wax dhexdhexaadin oo halka ka soo socda ma jirtee in faraha la saari doono ay u muuqataa ciidan fara badan oo Axmed Madoobe iyo deegaanadaas ka yimid dhanka Kismaayana way jiraan oo meel duleedka maxaan ku dhahay balad xaawo iyo deegaanada kaleba lagu ururinayay marka waxaan isleeyahay dagaal maalmaha fooda nagu soo hayo kulay uu bilaaban doona waxayna dagaalkan lagu beegi doonaa xilliga la leeyahay guddi baa la dhisayaa oo maxaan ku dhahay guddiga la dhisay guddigu waa la sii dhisay laakiin xilliga qabanqaabadu ay bilaabanaysa magaalada Garbaharre iyo Jubbaland la leeyahay ergooyin ka yimaadeen xilligaas lagu beegayo la rabaa in lagu fashiliyo marka fashilintaasi waxa weeyaan maamulkan Jubbaland iyo ciidanka halka jooga aad iyo aad bay magaranaysaa ay ugu diyaar garoobeen dawladuna waxay rabtaa inay qorshahan hirgelis ay rabtaa marka waxaad moodaa in meesha geed gaaban la isugu jiraad moodaa arintuna waxay noqonaysaa in halkaas dagaal uu ka dhici doono waxay ugu maqaalaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu toos ula hadlo yiri faragelinta ciidamada Ethiopia ay ka wadaan maxaan ku dhahay gobolka Gedo ha joojiyaan oo arintaasi ma garas ha joojiyaan laakiin ma joojinayaan ciidamadan Ethiopia ee danta leeyna ka weyn inay de umada Soomaaliyeed gumeystaan oo qabsadaan bay doonayaanba marka umada Soomaaliyeed oo heshiisay iyo hawsha barbar u dhacda toona dimaba rabaan iyagu dantooda kuma jirtaba qorshahoodana maba aha marka arinta meesha taala waxa weeyaan in halkaas dagaal uu ka soo socdo laakiin muhiimadu waxa weeye gobolka Gedo dadka degan baa la rabaa inay qaraar qaataan oo ma garanaysaa mustaqbalkooda iyo ayahooda inay ka tashadaan oo qaraar sax qaataan gobolka Gedo dadka degan baa laga doonaya reerkadu waxay leeyihiin Ethiopia waa la dagaalamayna anaga hub kaliya la siiyo dawladdu hubana siiso anaga Ethiopia waa la dagaalamayna Jubbaland arinteedu waa arin buda gooni u tuman oo dawladda Soomaaliya iyo Jubbaland wax ka dhaxay iyo reerkada ka dhaxay waa gooni laakiin farqadu marka xaaladda gobolka Gedo maxay ku dambeyn kartaa saacadu isleedahay marka fiirsay dagaalka Ethiopian soo gurguranay Axmedoobe ku hanjabay reerkadu dhahayna lama imaan karana lama qabsan karo gobolka Gedo maxay noqon kartaa ay dawladda federaalka Soomaaliya dhayso maamulan Garbaharre ka sameynayna wallahi gooriyo aniga waxaan isleeyahay meeshan dagaal waa run waa lama huraan dagaal uu ka dhici doonaa dagaalka meesha ka dhacana wuxuu noqon doonaa dagaal midkii hore saan anu qiyaasaya ka culus buu noqon doonaa sababtoo ah dawladda federaalka ee Soomaaliya way u diyaar garowday waatan hadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu la hadlay dawladda federaalka Ethiopia waa tuu la hadlay ay u leeyahay faragelinta naga daayay niman yahow Ethiopia de sida kuma daynaysa Ethiopia kala qaybinta iyo waxaan Iran hubaysanay iyo kala qaybinta iyo waxaan way ugu baxdaaba Axmed Maxamed Islaana de asagu sidiisaba waxa weeyaan waa gobolkiisa oo dhacay in New Jubbaland lagu dhiso magaalada Garbaharre waa arin fashil weey marka isagu wuxuu dhaqaale heli karay iyo wuxuu ciidan heli karaba halkaas uu keeni wuuna keenayba oo de waxa weeyaan in halkaasi Cabdirashiid Janan iyo qolyaha lagu weeraro waa qorsho maartay meesha yaala weey marka waan ogaan doonaa horta bal meesha waxa ka soo socda laakiin waxay u muuqataa sida hadda wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan in labada dhinac bay u diyaar garoobeen haddii bay ku simo gol yahay dagaalkaasi dadka shacabka ee gobolka Gedo dan uma aha
dadka meesha maxaan ku dhahay degan uma aha guud ahaan ummadda Soomaaliya dagaal meeshaas ka dhaco wiilasha Soomaaliyeed la soo adeegsado dan uma aha marka aan waxaan dhihi lahaa oo marba ku soo celceliya waxaan xal loo heli karo ma jirtee xal intii loo helo ummadda Soomaaliyeed dib ha isugu noqdeen baan dhihi lahaa anigu fargoda ma santahay Said Cabdullaahi Dan wuxuu sheegay in ciidamo oo dira gobolka Sanaag isla markaana u yeeray odayaasha iyo beesha warsangeli ee nabadoonada iyo suldaanka guud ee Suldaan Saciid inuu markaas u sheegay in dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka waqooyi bari ay ka shaqeyn doonaan gobolka Sanaag kula tahay Saciidani inuu gobolka Sanaag la wareegi karo Somaliland waxay leedahay Sanaag iyo Sool waa Somaliland Saciidani wuxuu leeyahay Sool iyo Sanaagna waa Puntland marka see kula tahay wallahi aniga waxay la tahay waxa weeyaan reer Khaatumo oo loo magacaabin qolada warsangeli iyo maamul loo sameeyay warsangeli iyo dhulbahanti oo maamul loo sameeynin oo baajoodkoodii iyo wixoodii qorshahoodii ayna dawladdu siinaynin ayay de labada maamul ba isaga filaayeen hadda oo la yiri maamul baa tihiin oo baajoodkoodii iyo qorshahoodii ay qaadanayaan Saciid Cabdullaahi Dani fadhigay kaga adag yihiin Saciid Cabdullaahi Dani Djibouti baa hadal saxaab uu yiri wuxuu yiri markii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud adigu aad la kulantana ma Djibouti waa barnaamij saxan waxa weeyaan maxaa marka aad la kulantana waa nin wadaana sultaan marka anagu la kulana xaraan xaraan ka dhigay yaani waa mid mar walba aan ka hadlaynay war qoladan dalkii Soomaaliya qolo walbaba karin intay samaysatay oo calan ku tilmaantay bay geed hoosti ka waabatay bay yey afar geed iyo afar tuulo bay qolo walbaba waabatay oo dhaheen waa maxaan ku dhahay waa deegaankanagii iyo waa dawlad goboleed noloma soo dhawaan kare iyo dawlad madax bannaan hadda wad arkaysay ninkii Saciid Cabdullaahi Dani dalka Puntland oo ku haya dalka Puntland ku haya wax khayr oo soo wada ninkaas waa iska jaajuus maalkii uu buu ahaa maxaan ku dhahaa imaaraadka weeyaan marka aniga waxaan aaminsanahay firdhiya horta moodaa meesha inuu kusoo bixi doono anu firdhiyaan wataa firdhiyaan dabeer mashidaal ya xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya inuu ku boodaan ay u badan tahay oo Jamaal ay soo doortaan oo xildhibaanada waxa leeyahay xashiq iyo loo danayn xashiq meesha looga danayn lahaa Jamaal hala doorto firdhiyana meesha laga saaro adoo soo doonto ma noqoto firdhiye haddii intii la doorto meeshaasi loo doorto saan isleeyahay firdhiye waa kaga adag yahay fadhiga waa kaga adag yahay labada qolob laakiin de firdhiye waxa leeyahay dadka hadda beesha daarad waxay ka oranaysaa Xasan Sheekh inuu soo laabto beesha daarad marabto marka dadka meesha degan warsangeli dhulbaanto waxay leeyihiin xildhibaanada dhigta ugu sheegeen warneen hawiye intuu soo laaban lahaa nin kale oo daarada soo baxee ama dinaha soo baxa ama nin kale soo baxee adigu meesha maxaa la yiraahdaa firdhiyaha nagu soo celina maadaama xisbiga uu ku biiray maxaa la yiraahdaa Xasan Sheekh والله دي نكا وي وسكن انت اساسي ما هبدي هذا انت اساسا لكن انا قدنت انا غارن لك waxba naga magli اي كان نكا وي وكان اساسي وي حسن شيخ محمود انا الى ما انه سو نقو حتى دي فرديه لا دورتو الى ما دورشada dambe inuu soo noqon ilaa ma way Soomaalida idil ba waxay tahay wax cusub ay jecel yihiin haduu ninka madaxweynaha hal mar la doorto mar labaad inuu ku darsado toosa inta badan ma dhacdo marka anigu waxaan leeyahay xifaaltan adag ba kala dhaxeeya ninka lagu magacaabo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Puntland waxa weeyaan Saciid Cabdullaahi Dani asaga madaxweyne Xasan Sheekh keenayba marka aniga waxaan leeyahay maadaama dawladda federaalka ee hadda joogto ay isfahmayaan firdhiyaha la doorto si uu isaga celiyo Puntland waliba waxa weeyaan qolada isaaq meel baa la isugu iman karaa Somaliland si baa la isku fahmi karaa hadda gaashaamo wada hadal ugu socda beesha hor jacay dhulbaante oo ka wada hadlayaan xaaladda iswanaag si baa la isku fahmi karaa laakiin qolada aan nolosha u ogolayn ogoleen dhulbahanti iyo qoladan warsangeli iyo dadka meesha degan inay naruuro helaan waa qoladan Puntland ama Sheerteeniya qoladaas marka waxa weeyaan waa firdhiye baan leeyahay si fiican buu boorka uga shafin karaa laakiin ayaga hadda nacayb gooni uma qabaan dhulbaantay warsangeli laakiin Xasan Sheekh ka urnayn meesha oo nin hawiye ah oo markaas dhibaato dhex martay Saciidana shalay asaga soo doortay inkasta sida sheegtay sax tahay oo Axmedowi Dani ayaga keena maantana ayaga diidan shalana farmaajo diidanay marka si walba ahaataba kama urinayaane xilligii Faroole uu joogay iyo xilligii uu joogay maxaan ku dhahay Cabdulle Cali Gaasiyo marar badan waxa jiray uu soo joogay Xasan Sheekh Maxamuud oo Shariif iyo umada kale ay hogaaminayeen markaas qoladan ma Xasan Sheekh waa laga urinay Xasan Sheekh lagama urinaynin sidooday waxay u rabaan inay geela saynta meeshu kaga yaalaan oo Puntland inuu hadlay wuxuu yiri balantii oo naga baxay marka Puntland balanta loo qaado mar walba laga baxay maxay farmaajo naga baxay lahayn Xasan Sheekh naga baxay Shariif naga baxay Xasan Sheekh trip kale naga baxay hadda naga baxay
marka balanta reer Puntland loo qaado laga bax maxay ballantu waa munaafaqada anigu doonahayo munaafaqada aan doonahayo iyo dabamaryada iyo kaliga iyo kali noolaashaha aan anagu doonayno Cabdulla Calagaas iyo maxaan ku dhaaf Faroolo iyo hadii bay Saciid Cabdullaahi doon ay doonayaan munaafaqada ay la doonayaan daarood anagu aan matalo cid kalena yaa waxba laga weydiinin munaafaqada ay walwaalahayaan rabaan Soomaali cidaan anaga ahayn tarin maysada barnaamijka ay wadaan weeye munaafaqada barnaamijka looga baxay taanada cid ogolaanaysa ma jirto aduu kaliya ma tiid mogta umadu waxay wada baratay waxba la wada yaqaana adiga maxaa marka ka dhigay maxaan ku dhahan mursal la soo diray maxaa ka dhigay arki doona farqadu waa mahsan tahay barnaamijkaasi wax ka soo kordho arki doona dawladda Ethiopia iyo Eritrea wali waxay dawladda Ethiopia waxay u tahanjabaysaa Eritrea xaaladuna meel xun maraysa Djibouti naftigeeda dood badan ayay galaysaa marka waa arki doona meesha wax ku dambaysa barnaamij shirgare meel fugarsiye inta barnaamijkan barnaamij lama kulmi doona xad leenahay fi amaan illah